الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله أما بعد إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقتي تبضضوات برنامج كيني تحنها هبدغن كي نبينا صلى الله عليه وسلم حلقتنا وحين كهد لنا إن شاء الله تعالى موضوعي حلقتي هرأي كهد ليني أو نبي صلى الله عليه وسلم قاب كي وردغمي عرورتيسة هي عرورتيسة كوي سير دلين أما أوجا ونقني قابب كأنه صوت المعنى وحين كدرينا النبي صلى الله عليه وسلم ودون كان عرورتيسة هي كوي سير دلين با سيد حديث كوة الماميو حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم مركي فاطمة أسوقشوا ودون كان وأنا سود ويني سودك الحديث أبي هريرة وحت المامية النبي صلى الله عليه وسلم مال مها كمدة ويلك أوجا وياهي حسين بن علي اللي يراهو أيو النبي صلى الله عليه وسلم ودون كذي يدو أو جوبت تشوجو نين اللي يراها الأقرع ابن حابس التميمي دبتنا أقرع به الله وحيري وحن ليه هاي طبعا عروران ليه أو ولي جود أنا ندون كنين أنتو النبي صلى الله عليه وسلم ليه أبي دبتنا النبي صلى الله عليه وسلم وحوجت شوابي هذا الآن قيمة بدنه وحكوري من لا يرحم لا يرحم قفك أن حريسنين لو من حريسته وحكم إذا ولا يلقى بكاس النبي صلى الله عليه وسلم وحنباري عرورته وياهي سيد حديث كأبي هريرة وتلماميه وحليه النبي صلى الله عليه وسلم بان وصباحي يسقى عرورته وأوجا وياهي حسن يا حسين مد بجرب كسيده وحنبارسن ومرنا وكندو كنايو marna uu kan dhunkanayo markii uu na soo gaaray ayaa saxaabada nin kamid ah wuxuu rasuulka weydiiyay rasuulkii Allah miyaad jeceshahay markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka jeclaada anigu ii jeclaada qofka nacaana aniga ayuu inacay rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo tilmaamay sida xadiidka Abi Hurayra walaalayaal uu tilmaamayo wuxuu leeyahay waxaan arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo Husayn ibn Ali waxa weeyaan sida oo xambaarsan dabeetana uu dhareerinayo dhareerkiisuna uu dusha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu kaga daadanayo sidaas ay tahay hadan nabiga sallallahu alayhi wasallam kamuu dajinaynin korkiisa manuu dhigaynin dhulka manuu tuuraynin iyagoo ku dhareerinaya ayuu hadana nabiga sallallahu alayhi wasallam uu xambaarsanaa waxa kamid ah walaalayaal qaababkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la dhaqmayay sida xadiidka Muawiya uu tilmaamayo waxaan arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo dhunkanaya bismaha حسن بن علي أما إسقى أو موتسنية عرب كيس موتسنية شعيل النبي صلى الله عليه وسلم وشعيل هيدرتي مركز معاوية وحلية لباب بشموده أو النبي كلهم كذي عرب وموتصدي عذاب حويا تابا ما يسوء إلهي سبحانه وتعالى عذاب مايو حديث كان إمام أحمد بصوص عرية وحكم دور الله القابب كالنبي صلى الله عليه وسلم ولدغ ما عرورته وأوجه هي إن وحويا وجديد كأسرين هاي وفنجشيني أو صوفوشيني أو حويا أي لكر صناعي وحكم إذا قابك النبي صلى الله عليه وسلم ولدغ مي إنه لا عياري سيد حديث كسعيد وتلماميو النبي صلى الله عليه وسلم باللوجي رمال ما كم إذا عنته لو سمي دبتنا واللوجي النبي يسوع ودوين كي مقالة ميت كم إذا مرية أي وحو أركيويل كأوجو هي حسين ليراهو oo wadooyinka magaalada Madiina mid kamid ah kula ciyaaraya caruur kale dabeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam qacantiisu soo fidiyay si uu u qabto dabeetana wiilkii yaraaba ka cararay oo hadba dhinac uga cararay nabiguna waa eryanayay isagoo waxa weeyaan la qoslaya waxa kamid ah qaababkii nabigu ula dhaqmay caruurta oo awooga u yahay in hadii hadiyad loo keeno wax kamid ah hadiyada uu siinayay oo uu u soo gudbinayo isu dhaafinayay waxa kamid ah qaababkii nabigu sallallahu alayhi wasallam ula dhaqmayay in hadii iyaga oo khaldan uu arko uu saxayay oo khaladka aan u sii deynaynin sida xadiidku uu tilmaamayo maalmaha kamida labadiisa wiil ee awowga uu yahay Xasan iyo Xuseyn mid kamida ayaa doonay timir sadaqadii kamida inuu qaato oo uu cuno uu qaatay afku galiyay dabeetana nabigu waa ku qayliyay wuxuu yiri tuf waxa weeyaan miyaanad ogeyn sadaqada inaynaan cunin bimacna oo aanay inoo banaanayn maadaama waxa weeyaan aalu beedkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka tirsan yahay intaana waxay noogu eeg xalqadii 7 barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee habdhaqankii nabiga sallallahu alayhi wasallam
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.